بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. waxaan maanta halkan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee ku jira bisha Ramadaan inaan ugu bishaareeyo ama u cadeeyo in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AUSOM Uganda iyo saaxiibada caalamiga in ay gacanta ku dhigeen si buuxda magaalada Mubaarak iyo tuulada Dar es Salaam oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. guluf loogu magac daray loogu talagalay ama loo qorsheeyay bisha Ramadaan oo loogu magac daray Badr. laakiin howlgalka Shabeellada Hoose si gaar ah howlgalkiisu waa howlgalka Hillaac. muhiimadda ay ku fadhido ujeedooyinka howlgalkan wuxuu ahaa in laga saaro cadawga khawaarijta ah deegaanadaas aan muhiimadooda dib ka soo sheegi doono, in la xaqiijiyo amniga deegaankaas iyo in la burburiyo xarumaha muhiimka u ahaa kooxda khawaarijta ay ku sancayn jireen miinooyinka. waxaa halkaasi ugu yaalay maxkamadaha ay dadka ugu wacan jireen beenta ah iyo canshuuraha baada ah oo ay qaadaan ay halkaasi xarun u ahayd oo dadka looga wici jiray. howlgalka ujeedkiisa afraad wuxuu ahaa in kalsoonida shacabka gobolka Shabeellada Hoose oo muddo dheer ay kooxahaasi ku habsadeen in la soo celiyo ayna dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. howlgalkan waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee lagu cirib tirayo haraadiga khawaarijta, waxaana si gaar ah u bogaadinaynaa geesinimada ciidamada qaranka oo iyagoo sooman la ogyahay cadceedda kuleylkeeda dhulkaas istiraatiijiga ah naf iyo maalba u huray in ay ka xoreeyaan kooxahaas kana eriyaan maleeshiyaadkii argagixisada ee halkaas ku sugnaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada caalamka. muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Mubaarak ay leedahay waxay ahayd waa markii koowaad oo la qabto deegaanka Mubaarak oo runtii u ahayd kooxaha khawaarijta xarun istiraatiijiga oo lafdhabar u ahayd dhaqdhaqaaqooda, xarun laga soo abaabulo weerarada gaar ahaan kuwa lagu beegsado magaalada Muqdisho oo halkaasi waxaa ku yaalay warshadihii ay ku sancayn jireen miinooyinka, goob ay ka hirgeliyaan sida hadda aan sheegnay maxkamadaha been abuurka ah oo ay ku caburin jireen shacabka Soomaaliyeed. dad badan oo ganacsataan ah ay aad u yaqaanaan oo looga wacay gabaad iyo meel horjoogayaashooda sare ee argagixisada dhuumaaleysi ay ku joogi jireen ama dhuumaaleysiga ay u joogi jireen. sidoo kale waxaa runtii muhiim ah in goobtaasi ahayd goob marin istiraatiijiga oo maleeshiyaadkooda isaga gudba ama dhanka xeebta ama dhanka gobolada kale ee dalka sida Jubbooyinka oo kale meel ay maraan. natiijada howlgalkan wuxuu ahaa runtii qiyaastii kooxa khawaarijta kontameeyo ka mid ah kooxahooda oo horjoogayaal ay ku jiraan ayaa lagu khaarijiyay maalmihii howlgalka Hillaac uu socday. bishan barakaysanna ciidanka xoogga dalka iyo dowladda Soomaaliya waxaa runtii xoogga la saaray awal bilaha Ramadaanka ayaga ayaa howlgallo iyo weeraro soo qaadi jiray, laakiin ciidanka xoogga dalka ayadoo wax laga baranayo laga faa'iideysanayo khibradda dheer ee loo lahaa sanadihii la soo dhaafay waxaa sanadkan ciidanka xoogga dalka iyo hoggaankiisa cusubba ee qorshaha koowaad ka dhigteen in kooxaha khawaarijta ah oo awal ayagu bisha Ramadaan iska dhigi jiray inay leeyihiin in bisha Ramadaan ay u noqoto ciidanka xoogga dalka bil ay ku xaqiijinayaan guulo waaweyn oo jihaadi ah dalkana looga xoreynayo kooxahaas. waxaa xusid mudan in horjoogayaal laga dilay
waxaa xusid mudan in ciidankoodii kala firxadeen waxaa xusid mudan in ay maantay la yihiin meel ay isku sheegaan meeshaasna ay si fudud gacantooda uga baxday dagaal 3 maalmood socday ciidankeenana runtii khasaarihiisu iyo ciidanka ay Soomaaliland howlgalayana khasaarihiisu ay aad u yaraayeen kooxahaas ama cisaabooyinkaas mugdiga waxay runtii dhulkeena ka dhigteen meel ay dadka ku argagixiyaan waxay jabiyeen isku dayeen inay jabiyaan dhabarka ka jabiyaan awoodii shacabkeena ee wax soo saar maadaama goboladaasi ay ahaayeen goboladii ugu khayraadka badan ama khayraadka ugu badan oo dalka uu ka soo baxo oo meeshii khayraadkana ay laga soo saari jirana ay miinooyin iyo argagax ay noqoto meel laga soo saaro laakiin runtii wiilasha iyo gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyada ah oo ku dhaartay inaanay hakan ilama dhulka Soomaaliya ee argagixisadu haysato laga xoreeyo waxa u suurta gashay runtii waliba si degdeg ah ayagoo bilihii la soo dhaafo dhan operation-adii la yaqaanay ee 3 buunta lagu xoreeyay kuwii xeebta lagu xoreeyay kuwii shabeellada dhexe lagu xoreeyay iyo kuwa hiiraan hadda ka socda iyo Bokool iyo Jubbada Hooseba runtii in ciidanka ay awood u yeesheen inay ka xoog bataan kooxihii hargagixisada ahaa kooxihii hargagixisada ee bisha Ramadaanka jeclaan jiray dhimashadana ay hadda dabada jeedinayaan kuwii dhihi jiray jihaad iyo badar baan ku jirnaa maanta ciidankeena ayaa badar ku jira howlgalkaana waxa lagu magac daray howlgalka badar runtii waxaan u hambalyeeynaa ciidankeena sharafta leh ee qaranka waxaana leenahay horay u socda shaqadii ma dhawa ilaa qofka u dambeeya oo Soomaaliya ku sugan laga xoreeyo dhulkiisa iyo deegaankiisa laga xoreeyo argagixisada waxaanu leenahay ilaahay idankiis dawladda Soomaaliya waxay sii wadi doontaa iyo ciidankeeduba waxay sii wadi doonaan howlgalkan barakaysan waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu yeeraynaa ugu baaqaynaa inay ciidamada garab istaagaan ciidamadaas iyagoo sooman haddana aan ka jeclaysan naftooda huraya waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa kooxaha khawaarijta habeen hore ayaan la afurnay kuwii ka yimid kuwa tiro badan oo ka soo firxaday bilihii la soo dhaafay runtii dibka ay sheegayaan oo ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada ay ka waramayaan wax sahlan maaha marka waxaan ugu baaqaynaa inay ka yimaadaan isaga soo firxadaan dawladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso cid allaali cidii ka toobad keenta ku biiristooda ama kamid ahaanshahooda kooxaha khawaarijta ciidankeenu ha guuleystaan leenahay dalkeenuna ilaahay waxaan uga baryaynaa nabad iyo baraare iyo khawaarij la'aan waxaan rajaynaynaa in howlgalladu ay sii socon doonaan howlgalka badar bishan Ramadaan lagu qorsheeyay iyo bilaha kale oo ka dambeeyaba guuleystaan idin leenahay waxaad runtii ka farxiseen qulubta dadka Soomaaliyeed ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu abaal weyn idin siin doono dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna idin hayaan sidaas la mid ah saaxiibada caalamka iyo AUSOM iyagana waa mahad celinaynaa guuleystaan leenahay bisha barakaysan ee Ramadaan waa bishii jihaadka waa bishii dulmiga iyo mugdiga adduunka looga qaaday waxaan leenahay hore socdaad iyo aad baan u mahadsantihiin